السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يقصد وهجنا القصوية الكميدي ياخذ بدين وين ما توحي كليه نيسا أو شيكتين وريهار معروف أي طلابك قاضي شرعي سومالان أو طلابك قاضي ديال ودا قرشة ديبتي دولة فدرالكا فبان دايرا ياكم مقل دونتان وضبينا كان وحا كميدا رئيس الوزارة قيري يسيرك أرمها جبدا النور ويوكوضا حالي حكمية كوفيد magacaygu waa maslax nasiib fadlan hadaan u cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad noola wadaagto wararkeennii warbixinadeena ugu dambeysay adoo mahadsan aadna kusoo dhawaada warkii faahfaahsan hay-adda nabsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay tallaabo ku habboon sharciga ay ka qaadayso wariye Haruun Macruuf oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala laanta af Soomaaliga ee VOA qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka ee NISA ku sheegtay in Haruun Macruuf uu leeyahay xiriir qatar ah ku ah amniga qaranka kuna kacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta sida lagu sheegay qoraalka NISA ma bixin wax faahfaahin oo ku saabsan xiriirada lagu eedeeyay Haruun Macruuf iyo waxa ay yihiin. Haruun Macruuf ayaa waxa uu caan ku yahay inta badan inuu ka warramo arrimaha amniga gaar ahaan kooxda Al-Shabaab iyo weerarada ay fuliso isagoo qoray buug si gaar ah uga hadlaya kooxda Al-Shabaab. waxa uu sidoo kale leeyahay barnaamij sameeya baaritaanada lagu magacaabo galka baarista kaasi oo marar badan baahiyay banaankana soo dhigay xog ka qarsoon shacabka oo qaarkood ku saabsan musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda iyo gaabsiga dhanka amniga oo ka muuqda hay-adaha amniga dowladda. Haruun Macruuf weli kama jawaabin war ka soo baxay NISA hase yeeshee waxa cad in arrintan aysan ka maarmi doonin VOA oo uu ka shaqeeyo maadaama ay tahay hay-ad laga leeyahay dowladda Mareykanka. xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta ka hadashay odayaal dhaqameed maalmihii ugu dambeeyay ka hadlay wadahadalada muddada badan hakadka ku jira ee dowladda federaalka ee Soomaaliland oo sheegtay inay wado qorshe ay ka dambayso dowladda Soomaaliya. Soomaaliland ayaa si adag uga hanjabtay odayaashaasi oo uu ka mid ahaa suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland maadaama ay faraha la galeen arrimo uusan sharciga u ogoleen sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Liban Yusuf Gahmud. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay in sharci laga tigsan doono odayaashaasi dhaqanka maadaama ay ka xadgudbeen xandahabka dhaqanka isagoo xuseyn odayaashaasi dhaqanka aysan go'aan ka gaari karin masiirka Soomaaliland. wasiirka ayaa si dadban u sheegay in odayaashaasi iyo dad kale oo uusan carrabaabin ay qayb ka yihiin qorshahay dowladda federaalka ku rabto in wadahadal laga qaybgeliyo dhaqanka. maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa warbaahinta lagu arkayay odayaasha dhaqanka oo ka mid yahay suldaanka guud ee Soomaaliland oo ku baaqayay in dib loo furo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya islamarkaasna laga qaybgeliyo wadahadaladaasi odayaasha dhaqanka. رئيس الوزراء جمهورية فدرالك Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka arrimaha dibadda Norway Eriksen Søreide ayaa shalay kulan dhanka internetka ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo dadaalada lagu xakameynayo COVID-19 iyo arrimo kale oo muhiim ah. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa dowladda Norway uga mahadceliyay taageerada hanaanka dinacafinta Soomaaliya iyo gaaritaanka barta go'aanka ayaa cadeeyay dowladda ay sii wadayso dadaalada dinacafinta inta laga gaarayo barta dhamaadka. Eriksen Søreide dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadcelisay guusha u soo hoyatay dadaalada dinacafinta ayaa ballan qaaday in dowladda Norway ay sii wadayso garistaaga dowladda si loo dhammaystiro geedi socodka soo kabshashada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. dowladda Norway ayaa qayb ka ah wadamada dowladda Soomaaliya ka taageeray nabadeynta iyo xasiloonida iyo barnaamijyada horumarinta. daawadayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynaa wararkeena warka xigeenta ku muddan waxaan kaga tagay sidaas iyo amaanaha Allah.